siyaasadda Soomaaliya oo gaartay meel qariska tuur ah xilli ay natiijo la'aan ku soo dhamaadeen kulamadii madaxda dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka ee Muqdisho ka socday maalmihii la soo dhaafay hadda dadka Soomaaliyeed uma cadda wadada loogu gudbayo xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliya dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay in loo baahan yahay tanaasul siyaasadeed dhanka kale beesha lixaad ayaa galaangal weyn ku leh arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya gaar ahaan arrinta doorashada Soomaaliya shanta maamul goboleed oo ku kala aragti duwan arrinta doorashada maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ku aragti ah kooxda mucaaradka halka saddexda maamul goboleed ee Hirshabelle Koonfur Galbeed Galmudug iyo maamulka gobolka Banaadir ay ku dhinac yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli lama oga xaalka siyaasadda Soomaaliya sida uu ku dambeyn doono xilli maanta loo ballansanaa shirkii madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada